Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowgan waxaan ku eegaynaa falanqaynta wiikan inagoo ka bilaabi doonaa DXY. Marka DXY waan ka bilaabi doonaa. DXY wiikii hore markiin falanqaynay meelahaasii maraysay, wiikii koreyna meelahaasay maraysay. Marka falanqaynta wiikii hore dib ugu noqon doontaa insha Allah. Imika wiikan DXY haddii aan ka bilowno wiikii hore waxaan falanqaynay inay hoos usoo dhici doonto jaanis kastoo dhantirinana insha Allah ka faa'iideysan doono. Sida rajeynayo fiidiyowgii dib ugu noqon doonta insha Allah. Wiikan haddaan ka bilaabno DXY si aad ay doontareen usoo doontareen bay aad usoo aaday hoos. Marka waxay kusoo socotaa waxay sameynaysay lower high halkaas waa lower low kale. Marka imika waxay sugeynaa inay correction dheer sidaa usoo gasho ka hor intaanay hoos aadin hoostii selkii weli muu dhammaan selkan wax badan baa harsan waxa dhici kartaa inay yaroo correction sidaa usoo gasho kadibna hoos aado kadibna correctionkii weynaa soo yara gasho marka kadibna hoos aado marka dhaqaaqan badanka sugaya waxa weeyaan dhaqaaqa dheer ee korka aadaya ayaan badanka sugaya marka dhaqaaqani laga yaabo inaanu diyaar ahayn laga yaabo inay in yaroo correction sidaa loo yar galo kadibna lasoo dhaco hakan hoos loo sii jebiyo kadibna korka lasoo aado marka waxaan jecelahay anugu in marka hore correction yar la yar galo kadibna hoos lasoo aado oo imika inta la yar sameeyo correction inta la sameeyo kadibna hoos lasoo yar aado saasoo kale kadibna uu dhaqaaqii dheeraa bilowdo marka waxaan sugayaan uu dhaqaaqa dheer ee correctionkaasi wuxuu leekaan karaa kan ayuu leekan karaa kaasoo kale ayuu leekan karaa uu ka weynaan karaa markasta waxaan rajeynaya inuu welibana kan ugu yaraan uu leekaado marka dhaqaaqa dheer ee kan leeg insha Allah ama ka weynba ayaan rajeynaya inuu bilowdo marka imika in yar waxaa dhici karta in hoos la yar aado kadibna korka la aado marka lacagaha badanka DXY USD ugu horeysana baan ka sugayaa lacagaha kale ugu dambeysana waxaan ka sugayaa sell GBP USD wiikii hore meelahaasi ayaan rajeynaya inay maraysay jaanisyo fiican bay meelaha ka bixisay marka GBP USD yadana waxaan ka sugayaa inay kor la yar aado marka kor inay yar aadaan sugayaa kadibna ay soo dhacdo correction la yar aado kadibna lasoo dhaco saasoo kale marka jaaniska yare ee tareenkii korka ugu yar socda geli maayo waxaan sugayaa jaanis kasta oo down tareena insha Allah hadday fursad iga siiso waan qaadanaya marka down tareen dheer ayaa soo yara socda correction dheer oo kanoo kale u eg kaasoo kale uu noqon karaa waxa kale uu noqon karaa correction dheer oo kaasoo kale marka mid dheer oo saasoo kale ayaan sugayaa marka waxaan rajeynaya inaad kuwaasna kasoo faa'iidaysatay insha Allah imika iska sug correctionka yar sug kadibna marka correctionka sidaa loo galo in yaroo correction yar waxaad sugta abtireenka markaad sugtid kadib waxaa dhici kartaa inuu halkaas meelaha sare kasoo bilowdo dhaqaaqa dheer markiiba xaggaa sare kama soo geliya laakiin correctionka markuu siiya insha Allah ay soo geli doonaan in balsiga koobaadna helo marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatid lacagtana NZD/USD haddaan ku xigsiino NZD/USD si aad ayay korkaa u aaday waxaanay badan ka bilowday tani waxa weeye in balsigii koobaad kana in balsigii labaad marka correctionkaasi sidaa usoo gashay waxaan rajeynaya in balsiga ka faa'iidaysatay meelahan buu jaanis laga yaabaa inuu kaa siiyey marka imika waxaan sugayaa in yaroo correction oo kor la yar aadayo kadibna lasoo dhacay marka waxaa dhici karta in correction sida loo yaraado kor la yaraado xagga sare la yar jebiyo kadibna uu dhaqaaqii dheeraaye ee correctionkii weynaa marka correctionka weyn wuxuu noqon karaa mid kan leeg mid kaas leeg correctionkaas oo kale ayaa soo socda sidaan rajeynayo marka waxaan isku diyaarinaya inuu correctionka dheer inaan kasoo faa'iidaystay insha Allah EURUSD haddaan ku xigsiiyo EURUSD waxa lagu socdaa abtrain baa lagu socdaa marka EURUSD badanka waxay kasoo horjeedaa DXY bay kasoo horjeedaa marka EURUSD iyadana waxaan ku sugayaa correction yar kadibna yar kor la aado kadibna lasoo dhaco marka jaanis kastoo imka down tareenka weyn ee soo socda insha Allah
ayaan rajeynaya inaan la soo qabsado. Kan buu leekaan karaa waanu ka dheeraan karaa oo kaasoo kale ayuu noqon karaa. Marka jaanis dheer ayaa soo socda. Jaaniskan laga yaabaa imikada ready maaha, isku tuurin, waxaa sugtaa inuu ku siiyo impulse koobaad, kadibna kaa labaad waa raaci kartaa. Marka waxaan sugayaa anuu USD sel baan ka sugaya. Marka imikada selkaasi diyaar maaha, waa inaad sugtaa. Selkaasi imika diyaar maaha, waxaa dhici karta inuu correction soo yaraado, kor aado, kadibna uu soo dhaco. Marka badanka lacagahan waxaa ka wada sugaya waxa weeyaan correctionis ayaan ka wada sugaya. AUD USD waxaan ka sugayaa iyaduna correction baan ka sugayaa, oo waxay noqon kartaa impulse, correction kale, haddana impulse, correction kale, impulse. Marka correction dheer baan iyadana ka sugayaa. Correctionkaasi AUD USD way ka yara structure duwantii lacagaha kale, laakiin correction ayaan ka sugayaa. Marka correctionkaasi laga yaaba ilaa meelaha laga yaaba inuu soo gaari karo. Waxa dhici karta inuu meelaha soo gaaro uu dib u noqdo. Marka dhaqaaq dheer oo impulse uu soo socdaa, laakiin correctionkaasa ka horeeya. Marka waxaan ka odhan lahaa iska yarisu correction yar in la galo, kadibna waa soo raaci kartaa, hoosta waa soo raaci kartaa, laakiin weli diyaar maaha. Marka badanka lacagahani waxay ku wada jiraan correctionis bay ku wada jiraan, oo impulsiyadiiba impulsigan baa dhamaanaya. Marka correction yar baa laga yaabaa inuu galo, hoos soo yara dhaco impulse, kadibna correctionkii weynaa laga yaabaa inuu. Marka weekend ama bishan inta ka dhiman waxaan rajeynaya in correctionka lagu jiro. Correction kaasoo kale uu leekaan karaa, wuxuu leekaan karaa kaasoo kale ayuu leekaan karaa. Markastaba correctionka dheer sug, waa imika wuxuu dhow yahay waxa weyn very low, meel aad u hooseysa ayaa la jooga. Marka structure-kan loo eegayo ma dhow correction intuu suuqu yar nasto laga yaabaa inuu hoos u sii jabiyo halkan, oo dee baalkii dhaqaaqyada dhaadheer ee soo socda aad kasoo gaadhsid. Laakiin imika marka la eegayo halkan wuxuu joogaa very low, meel aad u hooseysa ayuu joogaa. Marka dadka badankoodu lacagahan way iska iibiyeen, USD-daas walibana waa la iska wada iibiyey. Laga yaabaa imika dad badan inay iibsadaan. USD Japan iyaduna waa lamid. USD Japan waxaan ka sugayaa in yar hoostan lasoo yar jabiyo, kadibna dhaqaaqii dheeraa uu halkan ka bilowdo, dhaqaaqii dheeraa uu halkaas sida uga bilowdo. Marka dhaqaaqa dheer ayaan doonayaa anuu inaan ka faa'iidaysto. Waxa dhici karta inuu halkan laftirkiisa ka bilaabo correction soo galo. Markaas dhaqaaqa dheer ayaan doonayaa anuu inaan ka faa'iidaysto. Dhaqaaqa dheer ilaa halkee uu tegi karaa, ilaa wuxuu aadi karaa kala bartanka uu aadi karaa, ilaa kala bartankaas uu aadi karaa, ilaa halkaas uu aadi karaa. Marka waxaan doonayaa dhaqaaqa dheer ilaa halka aadaya insha Allah inaan kasoo faa'iidaysto. Chance kastoo abtireen uu ku siiyo laga yaabaa rajeynaya inaan ka faa'iidaystay, laakiin waxaa dhici karta in ayar inta halkan laga hoos maro, kadibna dhaqaaqii dheeraa uu bilowdo. Marka deegas waa sidaan rajeynaya inay kor u aado ayaan lacagaha u horeysa USD-yaduna aan rajeynaya inay kor aadaan. Intaasan kusoo gabagabeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.